madaxtooyada Soomaaliya ilaa hadda si rasmi ah faahfaahin ugama bixin safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wafdigiisa oo 19 bishan ugu ambabaxay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Bogga Facebook ee Villa Soomaaliya waxaa lagu qoray safarka madaxweynaha markii uu ka dhaqaaqay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdul Cismaan Aadan Cadde, waxaana la sheegay in safarkiisa 2 maalmood uu qaadan doono isla markaana uu ku aaday dalka Isutaga Imaaraadka uu ka helay martiqaad rasmi ah. Villa Soomaaliya dib dambe ugama hadlin safarka madaxweyne Xasan Sheekh iyagoo ka gaabsaday in ay cadeyso in madaxweynaha iyo wafdigiisa ay gaareen dalka Imaaraadka iyo in kale. Sidoo kale muddadii safarka loo qorsheeyay oo ahaa 2 maalmood ayaa la dhaafay, mana jirin wax sawirro ah ama muuqaallo ah oo xafiiska warfaafinta madaxweynaha iyo warbaahinta qaranka lagu baahiyay tan iyo markii uu dalka ka ambabaxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Muuqaaladaas ama xogtaas oo ku saabsan safarka madaxweynaha, dadka oo durasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ay madaxda Imaaraadka la leeyihiin shirar qarsoodi ah, waxaana looga doodayaa qodobo muhiim ah oo waaweyn, kuwaas oo laga qariyay warbaahinta dawladda, midda madaxa bannaan ee dalka iyo kuwa caalamiga ah ee dibadda. Sidoo kale warbaahinta Imaaraadka Carabta ayaa dhankooda ka hadlin wadahadallada labada dhinac ee Soomaaliya iyo boqortooyada Imaaraadka. Sida aan xog ku helay, qorshuhu waxa uu ahaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka ku soo laabto 21 bishan, isla markaana ogolaha shacabka horgeeyo 22 bisha ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka Xamse Cabdi Barre. Balse waxaa muuqata dib u dhac xoog leh oo ku yimid safarka madaxweynaha iyo qorshihiisa inuu dalka dib ugu soo laabto muddo 2 maalmood gudahood ah. Bogga rasmiga ah ee madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya oo ah halka ay warbaahinta madaxa bannaan ka soo xigin jirtay wararka madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa ilaa hadda soo qorin xogaha kulamada madaxweynaha, taasoo shaki weyn gelisay badi shacabka Soomaaliyeed ee la socda dhaqdhaqaaqa siyaasadda Soomaaliya. Dalka Imaaraadka Carabta oo ka mid ah wadamada Carabeed ee aadka saameynta ugu leh siyaasadda Soomaaliya ayaa 5 sano ee la soo dhaafay khilaaf adag wuxuu kala dhaxeeyay dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana la sheegaa inay door muhiim ah ku lahayd isbedeladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay 15 bishii May ee sanadkan. Socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Imaaraadka Carabta oo ah kii ugu horreeyay tan iyo doorashadiisa ayaa muujinaya inuu soo noolaaday xiriirkii Abu Dhabi iyo Muqdisho, halka uu soo xirmay ama uu aad u yaraaday xiriirkii ballaarnaa ee Dooxa iyo Muqdisho oo aad u xoogganaa 5 sano ee ugu dambeysay. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ka socday qoraallo badan oo looga hadlayo maqnaanshaha madaxweynaha iyo xafiiskiisa warfaafinta ee madaxtooyada oo aan xog ka bixin safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda kale ee ku helisay socdaalkiisa. Taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah kuwa ugu badan ee wax ka qoray safarka madaxweynaha oo aan xog laga haynin tan iyo markii uu dalka ka baxay. Saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka oo aan la hadalnay waxay sheegeen in la buubuuniyay lana rabo in la marin habaabiyo shacabka Soomaaliyeed, balse ay saacadaha soo socda ka hadli doonaan kulamada madaxda Soomaalida iyo kuwa Imaaraadka Carabta. Su'aasha ay dad badan qabaan ayaa ah, ma waxaa socda kulamo qarsoodi ah oo aan la rabin in la baahiyo, mise waxaa shaqadiisii gabay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada qaranka?